بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا janalkeena mar kale iyo video cusub. maanta waxaan idin hayaa wuxuu yahay shakhsiyadaha loo yaqaano narcissism-ka. narcissist muxuu yahay? shakhsiga narcissistaha muxuu yahay? ma leeyahay calaamad aan ku aqoonsado? see dadka ugu fahmi karaa? marka narcissistaha adduunka hadda uu kusoo batay inaan iska barano, aad ayuu adduunka ugu soo batay. marka inaan iska barano oo iska ilaalino, qof walba oo shabaq uu dhigtay oo shabaqiisa kusoo dhacay aad ayuu ugu soo shalaayay. qofkaas narcissism-ka waa qof walba asaga shabaqiisa soo galay waa kasoo shalaayay. marka iska baro. marka horeba narcissism muxuu yahay? horta sidiisa narcissist muxuu yahay? narcissistaha waa shakhsi anaada ay ku badan tahay oo tilmaamooyinkiisa lagu barto waa kibir. anaa ayaa ku badan. shakhsi umada ilaahay oo dhan wax yariisu arko waa asaga waa isla weyn yahay, weyn uu isku arkaa dadka oo dhan inuu ka sareeyo ayuu aaminsan yahay. waa shakhsi kibir badan. kibirka ayaa aad uga batay anaada ku badan. aniga yacni daraasadaha culamaa nafsiga waxay leeyihiin inta badan yacni qaarkood markii caruurnimadiisa ayaa lasoo dhibaateeyey ayay leeyihiin. qaarkoodna ma la soo dhibaateen asagaa laga yaabo inuu bilaabaa. qaarkoodna waxay leeyihiin culamaa nafsiga caruurnimadiisii ayaa lasoo dhibaateeyey, ama qaarkood markuu caruur ahaa ayuu wuxuu soo arkay hooyadiisa ahayd haddii la rabo narcissiste, ama aabihiisa ahaa narcissism-kaas. marka dhaqankii haddii uu wiil yahay waxaa waaye aabihiis hadduu ahaa hooyada garaaci jiray oo maxay ahayd dhaqankii uu yeelana asiga aabihiisu mar walba wuxuu arkaa maho inuu yahay wax ku dayasho mudan ruul ayuu arkaa. marka aabihiisa ayuu qod u arkaa, aabihiisa ku dayanaa. marka hadduu yaraay oo aabihiisa u ahaay noocaas mararka qaar cunug waa noqonaya, amba gabadhii hooyadeed ay ahayd ayadana sidii oo kaleento oo markay yareed ay arki jirta hooyadeed oo dadka dhan ay ka dambeeyaan oo dadkii dhan ay heesato, dadkii dhan maasha allah ay faaneyso. marka calaamadaha lagu aqoonsado waxaa kamid ah kibirka. anaada ku badan, afaan badan yahay. haddaad kulantaan maanta oo dhan waa faanaya, ma ka daalaya inuu isfaaniyo. fursad walba oo helo ma ka daalaya. marmar sheeko way ku imaan kartaa waxaad sameysay, laakiin asaga mar walba waxaa hadalkiisa kanaan sameeyey, kanaan qabtay. haddii la rabo waa sameeyey, waa buunbuuninaya. haddii la raban wax uu sameeyey ma jiraan, waa faanina, waa isfaanina. asaga isbuunbuuninaya. in lagu faaniyo oo adiga lagaa sheekeeya qurux badan. mar walbana adiga iska sheekeysid ma fiicno. haddii sheeka ay sheek ku imaata dhib male, laakiin asaga mar walba iyo meel walba oo tago wuxuu jecel yahay asaga in la siiyo attentionka, in la siiyo jecel yahay, asaga la arko ayuu jecel yahay. narcissism-ka waa nooc culamaa nafsiga ay tafsiir u waayeen oo ay ku tilmaamaan cunugii shaydaanka, because dhaqamadiisa haddaad aragto isoo dad kula dhaqmaayo waaba yahay cunug shaydaanka. marka shaydaankii oo bin aadan laga soo dhigay waayay dhahaan culimada, culamaa nafsiga, culamaa psychology-ga. marka kibir badan yahay, anaada ku badan. marka haddii aad saaxiibo tihiin ama saaxiibka uu yahay mar walba ra'yigiisa ma khilaafi kartid. haddii saaxiib noocaas aad qabtid iska ilaali. horta waa inay kulmaan waay dhowr tilmaamooyin ama sifaad uu leeyahay waa inay kulmaan waay, hal sifo lema. marka waxaa waaye haddii aad saaxiibo tihiin oo aad ra'yi amba waxa aad ma khilaafi kartid, wuxuu jeclayaa mar walba inaad adiga waa kugu raacsanahay waxaad inaad dhahdo rabaa. asaga mar walba oo la daba socdo okay la dhawo rabaa, ma khilaafi kartid. dadka caadiga ah markii ay meel wada kulmaan bin aadan dabiici haddii la yahay, yacni qofaa ra'yigeen waa khilaafi karaa, wax natural waaye. waxaa dhehaysaa hay ra'yigan saan ma ahan. hadduu ku dhaho okay adiga maxaa taloo heesaa, maxaa ka duwan oo adiga aad heesaa ayaad dhehaysaa qofkii ma asaga maya. haddii ra'yigiisa aad khilaaftid waxaa waaye wejigiisa waxaa kasoo baxaysa caradii gudaha, nacladii gudaha kasoo baxayso, shaydaankii oo carooday wejigiisa kusoo muuqanay. see aniga horta igu diidi kartaa ra'yigeyga? yacni waa bilaaba. asaga muhiim ma u aha bini aadanka. wuxuu jecelyahay keliya inuu ku ciyaaro, inuu maskaxda ka qabsado oo keliya ayuu jecelyahay. narcissism-ka narcissistaha adduunka hadda uu kusoo batay in badan waa aragnaa way bateen qofka maskaxda uu ka qabsanayo. asiga horta marka horeba yuu ugaarsadaa. marka horeba wuxuu ugaarsanayaa dadka
kalsoonida ay ku yar tahay, dadka shakhsiyadooda xoogaa ay daciif ka tahay, dadka caqliga inta badan shaqeeya ma jecel, dadka mararka qaarna shabaqa waa u dhiganayaa dadka oo maxaa la dhahaa oo qalbiga ka shaqaysiiyo oon caqligooda markii jug ay gaarto leh markaas oo kacaya dad waxaa jira ayagana caatifiyiin oo inta badan waxaa waay caatifadooda ka xoog badan qalbigiya ka xoog badan caqligii, marka qalbiga la shaqeeya markii caqliga wuxuu kacaa markii jug la siiyo kaca dadkaasna mararka qaar shabaqa waa u dhigtaa, waa jecel yahay. marka si ilmahaaga marka horeba aad soo saaraysid hooyo iyo aabba soo saar cunug kalsooni badan leh, si aysan dadkaas xunxun oo xanuunsan aysan shabaqa ugu dhigin. marka horeba cunugaaga bar inuu kalsooni yeesho, marka dadkaas ugaarsada asaga qof caqli leh ma rabo, haddii oo kusoo dhaco xataa shabaqa u dhigta xataa qofka ma isla gaarayaan meel dheer ma oo isfahmaa qofkan aniga le soconayo aniga le tiisa le waay. marka horeeto waa markuu waa kusoo jiidana asaga dhaqamadiisa nooc ka mid ah waaye inuu kusoo jiito, laakiin dhaqamadiisa hadda ma rabna inaan ka wada hadalno. wuxuu noqon karaa ninkaagu noqon karaa, waxay noqon kartaa xaaskaaga, saygaagu noqon karaa, xaaskaagay noqon kartaa, yacni waa leeyahay dumar iyo ragba waa leeyahay shaqsigaaseeti. yacni waxaan ka hadlaya aniga caamatan shaqsigaas markaan dhahay rag le kama wado, bulshada inteedoo kale u noqon karaa, waalidkaaga noqon karaa, waalidkaagay noqon kartaa, caruurtaadu noqon karaa, nooc walba ku dhow ayuu noqon karaa, asxaabtaadu noqon karaa. marka tilmaamihiisa waa inaad iska barataa, aadna iska ilaalisaa, markii qof walba oo shabaqa usoo dhigtay oo kusoo dhacay shabaqiisa waa kasoo shalaay marka ilaahay manag dhiga kuu shalaayo. kibir waa kibir badan yahay, anaadaa ku badan, asaga muhiimadda asagaa siiyo, wax kasta asagaa isla jecel, wax kasto madharkiisa amba banaanka muuqaalkiisa guudna waa mid qurux badan, waa asaga mar walba wuxuu jecel yahay attentionka in la siiyo jecel yahay. saaxiibo badan uu leeyahay, inta badan narsiistaha qofka inta badan wuxuu leeyahay saaxiibo badan ayuu leeyahay, inuu isku dayaa dadka inuu soo jiito waqtigiisa iyo wax walba inuu siiyo dadka banaanka waa jecel yahay, markii wuxuu jecel yahay mar walba asaga in la dhaho heblaaya amba heblaaya in la wadwado oo la boombooniyo. marka inta badan saaxiibo way leeyihiin, wax walba u huraan waqtigooda, maalkooda, wax walba xataa way ku bixiyaan maalkooda say dadka u kasban lahaayeen, yani way jecel yihiin inay lahaadaan saaxiibo badan, wayna leeyihiin, inta badan way leeyihiin. narsiisistaha maxay ahaatay attentionka wuxuu jecel yahay in asaga la siiyo oo muhiim laga dhigo. naqdin ma naqdin kartid, haddii aad ra'yi isku khilaaftaan ma dhihi kartid waad qaldan tahay, asaga sax waaye adiga le qaldan. maxay ahayd anaada ku badan, wax walba anaa mudan. marka tilmaamooyinkiisa way badan yihiin, haddii oo shabaqa ku dhigto ilaahay makaso. waxa ugu xun waxaa waaye inuu noqdo horta saygaada, haddii ay noqoto xaaskaaga xoogaa weli cadaabteeda oo yar tahay oo anaga bulshadeena yacni wax dhibaata ma gaarsiin karta maho qofka dumarka intee in leg ay dhibaateyn kartaa ninkeeda, waxba ma waa yar tahay maho rag yar waa in yaroo oo daciifa moogiye ma la dhibaateyn karo. laakiin tad ugu xun waxaa waa haddii uu noqdo saygaada waa ku amartaagleenaya marka horeba wuxuu isku dayayaa bulshada xataa inuu kaa gooyo, waana kaa gooynaya, dadkao dhan xumaan ayuu kaaga sheegaya, ama adiga xumaantaada ayuu ayaga u sheegaya si aad u ahaatid gooni goosad ood keligaa aad u noqoto. marka horeba wuxuu isku dayayaa inaad keligaa aad ahaatid oo asiga le aad gooni u ahaatid oo wuxuu doon uu kaa samaysto. markaad soo xergasho ood guriga aad timaado waxawaaye dhaqankii wanaagsanaa waa dhamaanaya, tartiib uu dhamaanaya. hal maraad waxaad arkaysaa qofkii aa baratay maba ahaanba, asaga muhiimadda waxay ahayd inaad shabaqa aad kusoo dhacday ma ka bixi kartid, waa ka bixi kartaa laakiin waqti ayay kugu qaadanaysaa. goormee ka bixi waa mar yani qof walba wuxuu leeyahay awood uu ku taxamil maho, markii la gaaro awoodaadii ay kaa dhamaato oo dhahdo bis intaan kadib ma qaadi kara, intaan ka bacdi bis waay markaas aad tuuri kartaa, laakiin waqtiga qaadanay. marka horeba asaga muxuu degi caqligaaga, qalbigaaga, meel kasta ayuu kaa degaya. marka horeba waa ku qabsaday, maskaxiin uu ku haystaa, ma ka bixi kartid. wanaagii wixii uu kugu soo xergeliyey, wixii kuu muuqdo dadka oo dhan wuxuu sheegayaa xumaantaada ayuu sheegaya. haddaad leedahay waa buunbuuna, haddaadan lahayn waa alifayaa dadkii. maxaa la dhahaa marka haddii haweeney tahay idan saas oo kaleenta maxaa la dhahaa marka ninkeedaa basaan dhahooye, naagtiisaa basaan dhahooyse dadka qofka kuugu dhow aa la sadaqaaya, aa la rumaysanaya wuxuu kaa sheegaayo. marka dadkii oo dhan uu kaa gooynaya, adiga dad ma bilihid moon, dadkii oo dhan ayuu kaa gooynaya. marka horab taasoo isku dayaya, ma ku ogolaanaya, ma laga yaabo narcissism haddii aad
gurigiisa aad gashid ilaahay kuma geeyo inaad wax barato lagama yaabo ma ku ogolaanayo waxbarasho wuxuu isaga leeyahay ayaad noqonaysaa suu doonuuna kaa yeelanayo suu doon waa markii horeba waa kusoo qabsaday maho kalsoonida yar oo kugu dhineedna waa kaa baabi'inaya mar walba niyadu kaa dilaya kastiir kalsooni ah haysatidna waa kaa dilaya asaga shaqadiisa waay laano shaydaan ayay ku tilmaameen culama nafsiga acuudu billahi min ashaytaan rajiim waaba shaydaan kii oo bini aadan laga soo dhigi waa marka ilaahay naga najeeyo shartiisa ilaahay subxaanahu watacaalaana guryaheena ma soo geliyo ilaahayna owlaadeena wax ma ugu daro noocaas oo kaleenta hadday tahay haween iyo hadday tahay rag aniga rag lee kama hadlaayo laakiin waa haween iyo rag iyo nooc walba ayay leeyihiin rag iyo dumarba way leeyihiin laakiin tan ugu dhibaatada badan oo ugu xun waxaa waa markuu noqdo seegaaga taas ayaa ugu xun oodan ka bixi karin markii haweentaa xataa weli ay xaaskaaga tahay weli hoosha waxaa waaye waa iska yar tahay waanad ka bixi kartaa marka ilaahay naga najeeyo shartiisa iskana ilaali anaada ku badan maanta oo dhan qof isfaaninayo wax maanta oo dhan asaga leh haddii maslaxadii uu kaa lahay uu kaa waayan xiriirka waa kuu jaraayo asaga xiriirkiisa oo dhan maslaxad waa wax walba maslaxadiisa ka weyn wax walba maslaxadiisa ayaa ka weyn marka narcissismka waa badan yahay waa noocay badan yahay kuwa waxaa jira ayagan oo narcissisa u eg oon ahayn laakiin way u dhow yihiin inay noqdaan ayaa jiro shaqsiyada waxaa jiro shaqsiyadaha xunxunku way badan yihiin oo inaan iska ilaalin ay tahay oon taxadirka qabno psychopathy jiro oo shaqsi asaga aad u xanuunsan yahay kaas xal ma lahan marka ilaahay naga najeeyo ilaahay xiradeena ma soo geliyay caruurteena ilaahay ka badbaadiyo marka video maanta muxuu yahay narcissism ayaan jeclaystay inaan idin la qaybsado intaas ayaan kusoo koobayaa daawada aad ayaad u mahadsantahay kaagana mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga aad siisay daawashada aad daawanaysay videoga mahadsanid in badan videoga mid xiga intaan ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciao